been dhashay oo dabcan la leeyahay Soomaalnimo jirta waa waxyaabaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo groupkiisa ay ummadda ku khaldiyeen kuna inda sarcaadayaan ummadda Soomaaliyeed laakiin anigu waa horaan fahmay aniga gaas baa la dhaajinay arag baanay waa horaan arkay Xasan Sheekh Maxamuud iyo wuxuu soo wada wabiga yaaweyn muuqaalkan hadduu ku soo gaaro bilfadla si share garee like garee meel fog gaarsi jab salaamu alayhi calaykum ummadda Soomaaliyeed soo dhawaada meel ka saadaafaha adduunka ka joogtaan hadda waxaan kula wadaagi doonaa sir halis ah oo dabcan sensitive aan loo dhawaan karin sirtaas waxay tahay ciidamada Xasan iyo Xamsi ay ku soo daabulayaan gobolka Gado gaar ahaan raaskan Booni ayaan warkaaga hayaa khadka taleefanka waxaan ku waraysan doonaa nin aan magaciisa ku soo koobayo Cabdulle oo kamid ah ciidamada Gorgor ee loo xil saaray dabcan in ay ninkii madaxweynaha Jubbaland soo qabtaan sida ay sheegayaan Xasan Sheekh iyo dabcan groupkiisa ayaan khadka taleefanka ku waraysan doonaa general soo dhaw marka hore aad iyo aad baan dhawahay wariye sidee baad tahay waa ka qaaday dabcan waxaad ifaafaysaa qorshihiina koowaad ciidamadii specialka ah ee Gorgor baad ka mid tahay qorshihiina koowaad waa maxay horta qorshuhu waa qorshe dawladeed oo la wada sheegi maayo laakiin horta koow waxaan sugaynaa amniga qaranka Soomaaliyeed marka labaad waxa weeye waxaan la dagaalameynaa khawaarijta midda saddexaadna waxa weeye sida taliyaha guud ama madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed uu sheegay waxa weeye ninkii Axmed ahaa in soo maxkamadeeyo oo maxkamadda soo taago okay qorshiinu waa inaad Axmed soo qabataan laakiin dagaalkii general maadaama tahay nin ciidamada specialka ee Gorgor ka tirsan dagaalkii al-shabaab lagu la jiray ma waxaad u bedesheen dagaalka aad Jubbaland ku qaadaysaan horta waxaan qabanaynaa annagu waa degmooyinka iyo caasimada Jubbaland baan rabnaa inaan qabanno hata anagu haddeer Kismaayo uma socono laakiin waxaan u soconnaa caasimada Jubbaland kadibna waxaan samayn doonaa maamul ka madax bannaan Kismaayo kaas oo ah Jubbaland wada leeyahay kadib Axmedoobe loo gudbiyay haddeer maahan okay tusaalahaan qaraxyo xalay ilaa saaka ka dhacay magaalada Muqdisho ciidanka faraha badan ee lagu soo daabulayo gobolka Gado qaybihiisa kala duwan ma magaalada Muqdisho lagu safeeyo oo dabcan qaraxyada looga ilaaliyo haddii xamar ciidanku ma yara oo tiro ciidan fara badan baa jooga kuwa international community-ga iyo kuwa Soomaaliyeed waa joogaan laakiin niman waxa la tuu kula yaala tabtiisa lama helo moogta haye magaalada caasimada Muqdisho waa magaalo la wada leeyahay magaalo balaaran marka amnigeeda in la sugo aad bay u adag tahay sanadada dambana waa la dadaalay waa ogtahay wariye qaraxyadu waa yaraadeen sidii hore maahan haddeerna waa lagu dadaalayaa waa la sii kordhin doonaa guusha iyo gobonimada qaranka Soomaaliyeed wakaas okay tusaalahaan markaad Kismaayo aad weerar hadda dhamiciina koobaad ma inaad Kismaayo qabsataan ba mise waa inaad marka hore Jubbooyinka aad kula dagaalantaan kooxda khawaarijta al-shabaab hadda qorshaha koowaad wuxuu yahay baraar la aado iyo jilib iyo dhulkaas in la aado kadibna la yagleelo caasimadii Jubbaland ka bacdi baa loo gudbiyay ninka la yiraahdo Axmed haddeer laakiin uma soconno Kismaayo waxaan rabnaa horta dhulka iyo caasimada Jubbaland in la qabto oo khawaarijda meesha laga saaro isagu dhaqsiyaha badan ciidamada Jubbaland waxa laga rabaa inay taageeraan ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed ee federaalka ka bacdi baa Axmed iskugu iman doona ee haddeer Axmed looma socdo okay tan kale general waxaad ii sheegtaa ciidamadii dhammaa ee dalka Soomaaliya ay lahaayeen Gada lagu soo daabulayaa meelaha kale Soomaaliya kama tirsanamiya waa maxay sababta ciidanka inta leeg loogu soo daabulayo gobolka Gado tan kale dawladii ka horeysay ciidamo yar baa ka joogay gobolka Gado ilaa xuduudka Kenya laakiin hadda ciidamo xad dhaafa har iyo habeen diyaarad lagu soo guraya qorshihiinu Xamse iyo Xasan ma inay Jubbaland dumiyaan ba mise waa inay wax dhisaan horta Jubbaland la dumin maayo hadii dumis la rabo Kismaayo la weerari lahaa laakiin haddeer waxa la rabaa gobolka Gado in laga dhigo caasimada ku meel gaarka ee Jubbaland qorshahaasna waa socdaa kiibu aalana waa socdaa qorshayaashu waa fara badan yihiin war dawladna warqad buu ku yaalaa hadii waxa ogaataa ninkii Axmed ahaa Kismaayo in lagu weeraro lama rabo oo shicibada degan laakiin in maamul kale oo Jubbaland oo la dhiso oo caasimadiina la qabto waa la rabaa niyo okay madaxweyne maamul goboleed dabcan xukuumaya oo sharciyad haysta in waaran loo jaro isna uu madaxweynaha jamhuuriyadda waaran u soo jaro wal arrinkaas sidee ku la muuqdaa adiga Axmed iska cili baa ku jidha macna badan ma sameynayso sababtoo ah
madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waa Xasan Sheekh Maxamuud mandate-kiisina waa haystaa Axmed laba teem la doortay labadii teermna waa la doortay hadda qorshahan uu sameeyay ma ahan qorsho u soconaya haba yaraatee sababtoo ah labadii teem waa ka dhamaaneen teem saddexaad dastuurka Jubbaland kuma taalo dastuurka federaalkana kuma taalo marka ninku asaas ku caanshuy ma ahane madaxweyne ma ahan cid oo aqoonsana lama arko اوكي تصالحان قرقور لفتا جرين علي جود لاوي يو مدالي طبعا دمانتود يانا سو شرع درك ما فرديان وما حي شرع در هذا احمد مدوبه ku gaarka balantii iyo xad qarameedkii Soomaaliyeed ee madasha tashiga ayuu jibiyay asagana is doortay nimanka kale nidaamka iyo tashigii waxay ahayd in hal sano kadib nin kastaba doorashadiisa iyo qof iyo cod lagu dhaqaaqo si deegaamada looga soo wada baxo odayga Axmed haa kacaanku ka dheereeyay tanka dukaanka ka dheeranay in la soo qabto waa waajib oo kaas اوكي لكن اسباع وارن بو جري وارنkiisa hadii xasan la soo qabto Kismaayo lagu maxkamadeeyay ka waran Jubbaland waxay xasan ku eedeynaysaa in uu dabcan iyo sidoo kale inuu al-shabaab taageeray u dagaalkiina ka daayay nimankaas horta wariyay waxa weeye nimankaas horta xabad baan naga dhaxaysa madaxweynuhu joojiyo miisan joojinin hadaan nahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed yaana ku hadlay afka shacabka nimankaas waxaan dagaal hayn naga ma dhaxeeyo laakiin Axmed hadeer ra'iisul wasaaraha hore u sheegay waa kii Jubbaland waxay u afduuban tahay Axmed Madoobe siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba marka waxaan rabnaa ummadaas afduuban in afduubka ka saarna ma ahan anagu uma socono inaan macnaha khawaarij iyo dadkaas iyo waan isdilaynaa laakiin anagu nimankaas Soomaaliyeed ninka uu afduubanay dictatorka baan rabnaa inaan ku celino اوكي doorashada uu Xasan Sheekh Maxamuud doonayo ma kula tahay in koonfurta Soomaaliya ay ka dhici karto deegaamada nabadda Soomaalidan arkin sida Kismaayo kale galmudug oo kale maxaa la yiraahdaa Jowhar oo kale Muqdisho Garowe oo kale Gaalkacyo Dhuuso Mareeb meelaha dhan way ka dhici doontaa ilaa iyo Baydhabo هاي maxaa Muqdisho dabcan Muqdisho ma ka dhici kartaa ها Muqdisho ka dhici degmooyinka qaar waa ka dhici kartaa degmooyinka ka dhici karin ma magac dhawi kartaa de suuqa xoolo kale ka dhici karin ma huruwa waa ka dhici kartaa Yaaqshid 50-50 Daynila okay adiga afar degmooyin ka dhici karin waaweyn maadaama ay shan degmo waaweyn ay ka dhici karin sababtu Xasan dimuqraadiyadan beenta ah oo wado uu leeyahay doorasho cod iyo qof aan qabanaya soo laba oro karo waa qariska xor su'aal kalena waa ku sii raacinaya ra'iisul wasaarihi Xamse Kiniyimi dacwo wuxuu ka yahay Axmed Madoobe miyaynan ceeb iyo fadeexad ahayn in aad maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan aad uga dacwootid wadan kale dariskaaga waxa weeye حمزة waxaan maleynayaa wuxuu yimid arrimo siyaasadeed muusan imaan dacwo iyo booq iyo rabsho midna muusan imaan Kenya waa Kenya Soomaaliyana waa Soomaaliya hadeerna dunida saasay wada ogtahay wax kale oo dheeraad oo hadeer la sheegi karaan ma jirto doorashaduna waa dhacaysaa waan la qaban doonaa maalinba waxa awoodaa la qabtaa moogta adduunka wax 100% ma jiro هذا Mareykanka aragtay wax yar baa ka codeeyay inta milyan yahay waa waqti inta codeysana waa ogtahay marka hadii degmooyinka qaar laga codeyn karo degmooyinka laga codeyn karo la sugu imanaya dalkuna waa soconaya kacaankuna waa dhaqaaqay dadkuna waa midoobayaan horumarka iyo nabadana maalinba talaabadii la qaadi kara la qaadaya okay مثلا waxaad ii sheegtaa general tan kale aan ku weydiinay waxa ay tahay maadaama maamuladii dalka kala badhow ay maqan yihiin maamulo gaar ah iyo qabiilo gaar ah masiirka ummadda Soomaaliyeed ma ka hadli karaan golana ma soo fadhiisan karaan يعني waxaan ka wadaa SSC baa maqan Puntland baa maqan Jubbaland baa maqan waa beelweyntii daaroodoo dhan hawiye go'aan ma ka gaari karaa doorashadan horta wadanku wuxuu leeyahay dawlad dhexe dawladda dhexe waxay soo saartay baa shaqeynaya amarka ugu sareeyay madaxweynaha iska leh ra'iisul wasaaruhuna waa leeyahay dawladda dhexe waxay soo go'aamiso baa soconaya
meesha waxaan ka hadlaynaa waa qaran qabiil ka hadli mayno nimankaas maqanna doorashooyinkooga ayagaa soo dhiganaya ayagaana sheegaya cidda guulaysatay iyo cidda laga guulaystay intaba waana u madax bannaanaa waa shicib baa wax dooranaya maahane nin siyaasi wax dooran maayo okay magaalada Kismaayo saaka dhammaan astaamihii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse waa laga dejiyay xataa xafiiska madaxweyne Axmed Maxamed Islaan waa laga dejiyay soo laba hore kor dagaalkii meel xun buu gaaray dagaalkaasi waa arkaysayo ninkii waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Islaan la soo qabtaa la soo xiro maxkamadda hala keeno laakiin in sawir la dejiyay in sawir meesha la saaro wax weyn ma soo kordhinayso laakiin dagaalku wuxuu marayaa halkii ugu dambeysay cidii laga adkaadana waa arki doonaa laakiin dawladda dhexe ee qaranka Soomaaliyeed in loo hogaansamo ay aad iyo aad u wanaagsan okay dawladda Soomaaliya war bay soo saartay hadda waxay leedahay Interpol ba Axmed Madoobe soo qabanaysa bal aniga bal waxaad iga dhaadhicisaa Interpolku ma Soomaaliya ka shaqeeya xagee ba Axmed Madoobe laga soo qaban karaa hadda Axmed Madoobe waxa xabsi magaalo ku jira aye abdu hadda Nairobi maado waa la qabanaya waa la xirayaa hadda Imaaraadka waa la mid wadanka haduu ka baxo Axmed waa xiriya saasartu u faham laakiin in Kismaayo ugu tagay inta qori qaato Axmed baa soo xiraya oran kara ma jiraan umaynaya qorshooyin badan waa socdaan iyo nidaamyo hoos oo badan balse cid hadeer Axmed toos u weeraraysa ma jirto jaaniskiisa la sugayaa okay astaan baa jirtay Xasan Sheekh Maxamuud lahaa oo ahayd Soomaali heshiis dunida la heshiisa haddana waxa la arkaa Soomaali aan heshiis lahayn dunidana kala cararaysa soo lama oran karo 5 sano ka hor ama 4 sano ka hor wixii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gacantiisa ugu dhibay Xasan Sheekh Maxamuud maanta hal xaba xataa kama hayo dawladda waxna waa ka khaldameen waxna waa u saxsan yihiin arrimahaas hoose ee dawladda waxaan ka warsan doontaa nimanka siyaasiyiinta anigu ninkaas wixii ciidanimo iyo baan kala hadlay karaa maahan hadeer wax kale kuma sheegi okay su'aasha ugu dambaysa lacala dabcan general ka tirsan baa tahay ciidamada gorgor Axmed hadaad qabataan ma dilaysaan ma sumaynaysaan maxaad ku sameyn lahaydeen taasi waxa u taala siyaasadda dawladda dhexe ee Soomaaliyeed u taala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u taala baarlamaanka Soomaaliyeed u taala anagu waxaan ciidamada qaranka amar baan u qaadanaa amarkaasna sidii u fuliyay lahayn baan u fulinaynaa waa kaas okay waa maasanta walaal soo dhaw baan ku leeyahay bilfadlan muuqaalkan haddii ku soo gaaro si share garee like garee meel fog gaarsii dawladda Soomaaliya waxay noqotay dawlad dictatorship ah oo dabcan xukunka rabtay inay xoog ku qabsato hawiye iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay duulaan ku yihiin Kismaayo waxay rabaan Kismaayo inay cagta mariyaan halka beelaha daarood ilaa iyo hadda ay hurdaan laguna khaldayo been dhashay oo dabcan leeyahay Soomaalinima jirta waa waxyaabaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo groupkiisa ay ummadda ku khaldiyeen kuna inda sarcaadayaan ummadda Soomaaliyeed laakiin anigu waa horaan fahmay aniga gaas baa la idhaa jinniya arag baanay waa horaan arkay Xasan Sheekh Maxamuud iyo wuxuu soo wado wabiga yaaweyn muuqaalkan hadduu ku soo gaaro bilfadla si share garee like garee meel fog gaarsi ciao